ficnaan lahayd in dhalinyarada si gaar ah inaha iyaga lagu sheego waxyaalaha tirada dhalinyaradu qaybo badan oo buseeya ayaa jira markaan leenahay cidda macankaiyo diinta lagu qaraabtaa haddee dhalinyaradi baan u sheegaynaa inaan diinta lagu qabdin baan u sheegaynaa waxaan leenahay waxaan haystaa mira waa xirta dowladda midniro joojiya dagaalada dadku ay ku qabteen diinta uga baxayaan marka sadarra buseeya way ka heli karaan dhalinyaradu laakiin mid u baahan oo haway dhalinyaro sidii maagi jiray ma aanan samayn laakiin waxaan qabaa in sugaano fara badan oo horey loo yiri ama anagu aan nire micnaha erayo ku jira ama qaybo ku jira ay ka faa'iidaysan karaan balse waxaan isku daya inaan u bandhigo aqwaaniinta soomaaliyeed waaweyn anagu waxaan nahay dad hadda gadaal ka yimid baan nahay sugaantana waxaa leer ayaanu arrimahaas kala kaashan doonaa in ay diiradda saaraan dhalinyaradu inay wanaaga iyo diinta saxdaa iyo wadaniyadda iyo waxa ay isku mashquuliyaan qoryahan ay dhigaan waxaan maqlay fanaan gaadalaan la yidhaha saaxiibkeena khayr allah siiyeen dhiga qoryaha heesuu leeyahay waadnashan dadka dhiga dhalinyarada ayaan hadda soo xasuustay marka way iska jiraan laakiin awood gaar hadda la saaray ma jirin balse waxaan ballan qaadaynaa in aan u wargelin doono waaninta iyo dhalinyarada soomaaliyeed ama cid kastoo wax tirisaba inay dhalinyarada la hadlaan taasa ayaan uga gudbayaa oo ay ku soo celinayaan mikrofon aad iyo aad ayaad mahadsan tahay abwaane su-aashaadiina waa laga qancay waana laga sugayaa ama abwaanin gaarsiiya ama qayldhaan u diray insha allahu tacaala arday badan ayaa gacmaha taagaya marka haya ardaygaas. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي ضرب الله مقعي وأحمد عيسى مادة برتو مادة بجر أوف كومرسي. سؤال شيء وحي تاي تكتور كويدينا يا عوا هدي جروب كان قيلبان يهين جروب تاجن مدين تا يوسيد اللوجو ورتجي لو رتجي لديباتة وقت قدر كسعودي دلك الصومالية هدي لك عشان أرديد أقويانين تا ما فهمت دكتور سؤال شو مغش؟ سفر على أوان مغلق أحمد عيسى صباح ها أحمد عيسى برتا بيكم كومرس أحمد إنه بركة أنا حقير إنه ومدة عن بركة كل شيء قاعد نقول هذا كل مرة وهلقى عن كل مرة وموفمنت ونقنقة ودريين ما أتوقع فنانين وإسكالية بقى فانكو وقيم كمدا نقنقة كوحدة غيرنا أي مدة دوري سو إلي كتار سيسو إنه نبدلية تاب وإنت نقدوا بركة أقوتي نبيرادي أقويانتو إيو نيراناتو إنها وكلام مرمان نيرانان وحي كتيرا قفكستا الصومالي ودنيا الدولة يدلكو إنو كبه حالته تسوية وذات هويو دليرو من قبوة إنها بدور بوابيه marka anagu magaca baan raacay iyo inaanu ugu horeyno magaca yahay dadka kamaleeyay waxaan nahay dadkii uu asaasay baan nahay laakiin ummadoo dhan baa ku jirta taa ayaa moodayn aan isleeyahay oo ku aqoontahay su'aashii Ahmed Ciise dogmaantii aan ka bixin lahaa waa idin ku soo celiyay ومحسن تهي ولي سؤالي وقوس وصعصدان ضد كماش فرينا وبدنيين ولا حد الروحية مركا هو عندنا واسكي ما عندنا سكتوا الغابة هي يا كذلك عن كتاعي بشار محمد أو مقعد بسلا محارمي مادة بيس Bachelor of Interpretation أبرا هذا مستر مركا رحت دماغ السلام أمد الصوماليات gaar ahaan abwaanka iyo asxaabteeda oo maxaa la yiraahdaa oo meesha la wada fadhiiso salaan kadib waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo abwaanka ama kabiirka ama doctorina idinka kaca oo wax qabta masaa'iga laftirkooda wax qabad baa ku jira oo inay wax qabtaan oo maxaa la yiraahdaa ay bal wax jiro wax ka bedelaan oo dhaqan ay subeen ugu jirta qorshaha. Assalaamu calaykum. ما شيء سؤال شهادتكم والبديهين إن شاء الله تعالى نصكم. ما سمعت شو عبد الفتاح أنا هذا كان الجيم بشون أحسن
عبد الرزاق عبد الرزاق محمد حسن عبد الرزاق وعبد الفتاح ومسكاح عبدي رزاق يفتح عبد كاسر وهو مدري وبولس ولين بنتي حدين شاشة واحد بدل ما نوديه واحد لا لأن ها إلى دولة محاولة حتى أنا وحن كنت أجمع مدة شغالية إن حالة موش أنا هذا يكتشف إن أنا وحكبت استوديو كاية كنت أجمع وحد دوا الله يريها شو عايش جواب تكملي استوديو كا عيد كسائي وقال لك هذا يسمينا ديار مانوناي إن أنا هذا كان بدأ إن شمالية أيكم هذا كان يكتشف جد نا يقاوم ومنو كورينا سكسنا أما هي سبتو بدلنا أما كعندي وهو خبرنا وحنسنا هاي هلك أدى شمالية يسنا يكتشف حلوات استوديو كان كده بعدنا ديارنا وكمل aad iyo aad ayaad mahadsan tahay sida quruxda badan ugu jaabtay waqtigana aad u soo gaabisay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan doonayay tixyar inaan ku darsado. Adduun waa tabantaabo halkii loo toganayo ama loo tiigsanayo tubta toosan iyo dowga aqoon aan lagu tiirshin ama aan lagu toogin murti aan lagu tiiqin talo aan lagu miirin mata sowda hashaasiye taritaanka dadkaaga u tabaabusho saaka marka waxaan filayaa maxamed mid waa maxamed qadar waa sideed ku qoysta maahan isaga dhinaca ordayo isna suugaantiisa cabirayay su'aalihii xageeda ayaan u laabanaynaa doctore gadaal ayaa gacmo laga taagayaa haye ardayga magacaada sheeg mikrofoonkana qabso su-aasha qabta istaagna si dadweynaha ku arkaan. bismillahi rahmaani rahiim magacayga waa najiib cabdirasaaq horsabe waxaan dhigtaa maadada MBA-da loo yaqaanay master degree-ga ma rabo inaan hadalka kusii dheeraado waayo aqoon-yahano badan ayaa hortay hadlay muhiimaddii iyo ujeedkiina kolley horey ayay noogu sheegeen laakiin su-aasha taagan wax badan la isweydiiyey waxay tahay waa maxay aqoon-yahan aqoon-yahanku sidiisa qofba si ayuu definition gooniya uga baxshaa ama uu wax uga sheegaa maadaama barnaamijkeena ay marti noogu yihiin abwaaniinta soomaaliyeed ee kheyradhaan uu kabiirkeedu nala jooga caawaya abwaan iyo doctore cabdishire jaamac abwaan maxamed gacal xaayo wuxuu yidhi aqoon-yahanku waa geesi adag kuuna urnugu leh waa axad asluub iyo xishood lagu abuuray asaagii la siman waa nimaan ku aflagaadooneyne aasaaskii waxbarashada cilmigan udubta loo taagay aqoon-yahan la-aantiis iskood kuma istaageene ama kuma yimaadeene taas waa iga su-aashii ahayd waa maxay aqoon-yahan talabada raba inaan weydiiyo abwaanina waxa waaye adduweynaha waxaa ku kala fiirsan aqoon-yahano kala duwan ee dhalinyaro soomaaliyeed gaar ahaan waddanka ku suganta waxaa kula jooga arday iskood isku xilqaamtay oo la yidhaahdo worldwide Somali youth hadda taana barnaamij waxay soo wadaan la yidhaahdo socdaalkii Soomaaliya iyo soo celinta هذا أقوم ويسكولنا لكن ولا شقين بالعرب حتى ولي بلو نبتدو إلى رج اللي أنا بعتيبه بيت ويسكح حرام وحنسب الجيل. هذه ولي سؤاله وقوس وسعدان أبدو فهم بأنت السؤال بس يعني سوى جدّا هي ولي قدر بقى عمل جتها يا هي لبنان. Soomaalida waagi hore waxay caado u leedahay mar dhaqan weyn shantii qof oo meel isku imaataba saddex qof oo kamid ah ama laba waxay ahaa jirtay dad abwaaniin ah ama dad yani sugaan ah hadirtan dhalinta cusub magacaaga ku yeelan kartaa dhanka abwaaniinta ama kheyradhaan su-aashiidaas waaye دكتور ما فهمتي سؤال سوى بوجه العيال.
ilaasiyo haddee aniga kudayda abwaanigtii hore way u dhagan yihiin mararka qaar waxaa la yidhahdaa cabdisharow waxaan adigu tirinaysaa haddee meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan lama garanayo maxaa yeelay shuruucda qaar baad jebisaa marka waxaan idhahdaa dharaarimo waaye maanta annaga annaga baan idhahnaa haddii awooga iyo dhaqankeeda waxaad arkaysaa ma anina berigii geela inaha maalba lagu halqabsan jiray maaha geel bilo of course waa dhaqankayagii waa siday tahay laakiin maanta dadkii waa koreen waa weynaadeen xadaarad baa la gaaray waa in la helaa luqadda maanta annagoo luqadayda ka tegay waxaan qabaa dad waxa ay ku fahmayaan ani waxaan isku dayaa ragaa waanina mararka qaar waxaan idhahdaa heesihiina naargidgaraya ama af soomaali jiraan ka dhiga maxaa yeelay waxaan doonaynaa in ka yar iyo ka weyn kulle ay fahmaan baan doonayna waad aragteeno heesta qaranaa haddaad aragto fanaaniinta qaadaaya markaad muuqaalkooda markaad fiiriso waxaan ku weri heestatan waxaan rabaa wadaadadu inay fiirsadaan sidaa darteed gabdhuhu haddii xataa hidday dhaqan kaliya u lubisan jira hadda waxaan rabaa inaad kam siisaan inaad madaxa iyo din iyo ceebaad xataa waad aragteeno gabar walba qamaan sida minaha u xelada waad arkaysaa sababta waxaan ugu talagalay in nimanka minaha naftooda qaarkood ay leeyihiin dib baan ku qaraabanaynaa minaha inay dib fiirsadaan baan ugu talagalay oo aysadee gabar madax qaawan baan minaha heesaysa marka waxa weye waxa dhan lagu sheega waa aarag ugu jawaabtay waxaan rajeynayaa dadkii su-aalihii weli waa soo jiitamayaan inkastoo aan qaybtii su-aalaha soo xiri doona oo gudbi doona barnaamijka qaybtiisa saddexaad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacayga waa Axmed Sheekh Mukhtaar barto maadada BCA Bachelor of Computer Application oo ah Computer IT Information Technology. marna waa hadlaya bahda arday oo hadda codka si fiican ma maqashin marna waa hadlaya arday iska soo aasaastay oo doonaysa in ardayda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogto wax u qabata hadduu allaha awooda laga ka noqdo madhowna webkeena arday.org uu hawada soo geli doono waxaan ugu talagalnay in ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dunida haddii aan lahayd in laga caawiyo dhanka jaamacadaha iyo facultiga ee doonlaha waxbarashada aan ugu talagalnay annaga oonan cid hoos tegaynin oo cidna aan iminkan ka helayn wax taakulaha ama taageero oo iskan wax ugu qabanayna ummadda Soomaaliyeed khaasatan ardayda Soomaaliyeed anigoo uga hadlaya magaca arday.org waxaan weydiin lahaa bahda khayladaan doctorkeeda Dr. Cabdishire abwaankana maadaama abwaanadii horeete xilligii dowladii iyo wixii kasii horeeyeyba da'da yar lagu guwaabin jiray waxaan rajeynayaa su-aasha عشان أول ما أقوم على برجع ونكسر مركز مسلط سؤالي ومعلومات الغرب بنا وشو كاي برتي تا ممكن هذا مسؤولينا وارجع عرب سويني وعن بيارنا هنا نشر إنه إكتسب سوالي بنا مركز تا إنه مرتوب معي بيارنا هنا وشوينه وحتى إذا سؤال هذا جوابته وحن لا تستطيع كم عن منه ورفروزن سida dadka saaxiibkii sheegay marka taa waa ka qabto soo la tarmanaya leeyahay marka wariye labaantii su'aashaada jawaabteeda hadee magaran karaysaa gardaan iska uriyar dawlad ku xiray inta ku xiray ay inta hay'adaha dhaqaalaha ay ka helaan inay isu jirin waxaan wax ku wada waxa weeye waxa anagu aan gabagabeyn doona maadaama barnaamijka uu aan ugu talagalay inuu waqti 2 saacadood hawada uu ku jiro walow ay dad farsamoon ay daqiiqada aan hawada uga maqnayn waxaan rajaynayaa waa ardayga ugu dambeeyay oo su'aal ku weydiinaya kadibna waxaan gudi doonaa dowrka aqoon-yahanka anagoo u kala qaadi doona dowrka ay ku leeyihiin aqoon-yahanadu marxaladda dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay haya ardayga halkaan gacanta ka taagaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجري وعبد السلام عبد الله محمود. waxaan dhigtaa emergency medical care maadaama waddanka uu dhig baxay bal inaan geeskayga wax dhiigga ka joojiyo haddaan u guda galo su-aashayda doctor cabdishire jaamac shacabku aad bay maaragtay idin
taageersan yihiin anagu markaan ka hadalno ardayda hindiya aad ayaan haysiin u dhegaysanaa maadaama sheekh iyo aan isku jirno maaragta dhalinyaro ilbaxa laakiin kulligoo wada bannaan yihiin inay dhegaystaan waxaan idin dhihi lahaa maadaama aad hadda ku cabirteen xaaladda Soomaaliya heeso ma laga yaabaa sanadaha soo socda inaad ku matashaan filimaan wadaniya maadaama dadku ay isugu jiraan dad heeso dhegaysto iyo dad filimada aad u taageera marka haddii aysan jiraan aqoon-yahanada ma ku yeelan doonaan doorkooda wabillahi tawfiiq أنا ما أدري أنا بعد فهمتي سؤال شاء لو جيسوا كان. شو أقسام هذا كلام عليا شو كرايا هذا وكم أصدق تاجر هذا كنا عملنا نعم تاجر تاجر يسحب إذا كنتين هو يجي أروح عندي مقالة جوتا بوليوود كي يبغى كشغلة هي كشغلة بركة أنا وعلي يقرأ في شركة والله يا سندوق إلى هذيك المكان بركة واحد واحد مشهور لو بيجرا هذا نبى فيلم هيك يابس أغلق كذا أنا أبي أبغى ما صنت هاي مركز سؤال كي جوابته مثل نعكد لا عيسى مركز بالأرض كلاس سؤال غوا هي ما عادي بتدبر برضو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا عبد الشريف جامع أهنا أبوانك يا أخويانا الصوماليين أستاذي إنه وحقبت أمة الصوماليين أنتوا أسيروا وحنا أنا سؤال شيء وحيد هاي أمة الصوماليين وضعك على الصوت بحي قارب ربه إيمانين قارب سأي وقلبين أنا وحنا سيبوي قارب حبسي كجران قارن إلهي أيا وحو أفضل إني يوم تجان سيد أضو كلامته وحال بهذا إيش مسكح يكف كلام مسكح يكف كلام يكف كلام أيا إلهي وسهل مرك فكرك أنا أقوى حواي أرضي هذا تواعدك وجعلها لكن أنت أولاد معنا صوبت ودك وجعلها أنا وحقبت لكن اسكو حركي أما كونكشن كي يقول لي أرضي وحبرتي ودك بركي لغلابته بحيل قبلها أيا اسمعني جري معنا اسمعني dareenkooda ku muujiyaan suugaan sida qaarkood dadka ay sacrifice u sameeyaan wadanka ay ku laabteen waxa ay karaan ay qabteen marka waxaan dhihi lahaa maadaama fankii aad tihiin oo suugaan ah wixii ku cabirteen dareenkan oo idin kiciyey xoolaha aad qabanaysaan idinkoo aan macnaha wax ula jeeda u lahayn si macnaha ummad Soomaaliyeed fariin ahaan aad u gaarsiiseen aad u qabateen ma isku daydeen in aad fanaaniinta dalka joogto macnaha idinka maadaama aad nasiib u yeelateen maskax aad ku fikirtaan intaan macnaha nabad aad u hesheen ma isku daydeen in xiriir badan la sameysaan fanka gudaha ah oo maxaa la yiraahdaa wadankii joogo oo aan awood u lahayn inay macnaha maskaxda ku fikiraan dhaqaalana aan u awoodin ma isku daydeen inaad fanaaniin macnaha aad la xiriirtaan ma isku daydeen inaad ballaarisaan maadaama aad idinku u taagan tihiin maanta aad macnaha indhow tihiin generation hadda soo kacayo macnaha barnaamijka qeeladhaan macnaha in la ballaariyo oo wadankii falka joogo xiriir ma la sameysaan su-aashiisaas ayaan leeyahay wax yar oo waxaan rabaa oo inaan ku daro aqoon-yahan ay hadda koor wuxuu yidhi waa dheer tahay macnaha marab inaan kusii dheeraado alif baa loox lagu dhigaa aqoon baa lagu socdaa elays baa meel ka baxay iftiin iyo muuqda iyo idinka kalaan arkaa macnaha meeshaas xigmad ayaa ku jirto مرة أنا أقصد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبونا وحن ما شاء الله يا سؤال أو كويدي أنت صوبك عيسى كنتي أمين علي عبد. ذيك يا دكتورة أبا سبوا إسبرتنا نجاري هذه رفع جوا وكان كاي سايو ده فنان اللي بعتيسن لكن هذا موقف كدود إنها بلغ هذا السنتين midda kale shuruuda in adinkoo gudaha joogana ma rabno in inaha taargada u noqotaan dad cadowa oo wax magarataa aynu soo weeraro marka waxaan ka codsanaynaa heesaha ina guud oo aan dhibaatada keenayn qaada oo dadka wadaniinta ah inaha ku wacdinaysa annagana noo daaya kuwa dhibka badan oo inaha annagu horaa umir annaga mid annaga waxaan qadardaanayn waxyaabahaas dhibka badan annaga noo daaya marka waa jiraan kooxda dheerlaan baa jirta waxaa kaloo jira hadla socotaa in tiyaatarkii Soomaaliya inaha la dhisayo madaxweynaha Sheekh Shariif Khayr Allah siiye ayaa hormood barnaamijkan u ah oo waan maqashay maalin dhow maran TV-ga aan ka daawanayay waxaan arkay aan aad uga mahad celiyey fikirka inaha uu ka qabo
الصوماليين وأنا واحد على حق وأدو قراري يسوق وتبي بقى مررك قف يدك كلا فكر جوان هي عندنا وحياة بدر منها ورقتها إجراء مركا هنا المقدمة بدرها أريدو عندها مررك سياسة الدولة بيلوك سور كذا عندنا كان بيلها مكمل سنة وأنا كنت أجا مركا وان سجى وكبرني يا باقي جيسن بدرها وعندها تسور استعجل تياترك كنا انتي وحكرت قاعد ويرادو فانكا صواريه عندها ومهم وواحد على مرمان ما لنا إنه سريتا وهو ما لنا مركا قلنا بريا تياترك عبد الدوح استجنا أدو حلا بتكس ليش درا إذا بكيسا يويدينه مركا حرير وعلنا سياق كل دون سياق تبان سيادي من أنا صاحبنا جبريل سوغنا ونعمل كندا دبا هاي كفك سواليه هي يسوغنا إلى سوحرني وعدوا أن نيروبنا وكذا نور جيران وكول على الله سيدي فك سواليه دور بريلا سيدي سوغان ليدا أما موادين الصوماليين مالكين تا يفنانين تبيجنا لو تغير لا يدنا ضد دي يبدا بنعمل كل نص هذا سؤال مركز منا جوابته أو كون سيواها aad iyo aad ayay u mahadsan tahay weli waxaan ku sii jirnaa barnaamijkeennii